السلام عليكم. samafalka iyo deeq-bixintu waxay xiriir la leedahay diimaha tii ay doontaba ha ahaatee waxaa jira hab iyo xanaan nashqadaynta deeqda ah oo ballaaran taas oo isku xidha siyaasadda caalamiga ah dhaqaalaha lacageed ee caalamiga ah iyo diimaha taas oo leh muuqaalka lacageed ee been abuurka ah ee maanta. haddaba aynu dul istaagno oo aynu faahfaahinno ilmo kasta oo yuhuudeed waxa uu wax ka og yahay ama rumaysan yahay ballanqaadka lala socodsiiyey reer bani Israa'iil kaasoo eebbe si weyn u ballanqaaday taasoo ah in taariikhdu ku idlaad doonto hal nin kaas oo noqon doona nebi iyo masiixi adduunka oo dhanna xukumi ama maamuli doona ninkaasi quduuska ah oo leh qudus weligiina xukumaya. yuhuuddu waxa ay ku soo gabagabeeyeen in halkaa ku idlaanto taariikhda taas oo ay weheliso cahdiga la yidhi waa bagas juudayse waxa uu dhigayaa in Israa'iil noqoto boqortooyada adduunka. hase ahaatee dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka wax walba waxa uu u muuqday sidii hore mid ka duwan. yuhuudduna waxa ay ku mashquulsanayd cahdigaas laakiin sidee ayuu dal yar oo aad u yar ku noqon karaa boqortooyada adduunka? taasi waa laba mid uun in caalamku yaraado iyo in ay Israa'iil weynaato. fiditaanka Israa'iilna uu muuqdaa siday Falastiin ugu siqayso welise ma jirto yool dhammaad ahi kaasoo yaqiisan yihiin waxa lagu magacaabo Great Israa'iil waa Israa'iishii weyneede oo ay caasimadeedu tahay magaalada Qudus. waanaad arki kartaa in Israa'iil ay si aayar u fidiso. dabcan fikraddaasi waa waxa la xusi karo in muslimka iyo kirishtanku la wadaagaan yuhuudda geedi socodka taariikhda in masiix hogaamin doono dunida weliba qaab cadaaladeed. si kastaba ha ahaatee muslimka iyo kirishtaanku waxa ay qabaan si ka duwan yuhuudda taasoo ah in ciise oo ah ina maryama eebbana ballan qaaday waxa kale oo ay labaduba aaminsan yihiin in samada loo qaaday wakhtigii isku tallaabta iyo inuu soo noqon doono si uu adduunka ugu xukumo qudus sida uu eebbe ballan qaaday. qur-aankana waxa uu shaaca ka qaaday oo uu caddeeyey ifafaalaha soo laabashada nebi ciise calayhi salaam isagoo sheegay in aan nebi ciise isku tallaab lagu qodbin hase yeeshee uu eebbe korraysiiyey waxa uuna yidhi hadalka ay yidhaahdeen waxa aanu dilnay waa nebi ciise oo ina maryam ah rasuulka ilaahay ah may dilin mana ay tigtigin. hase ahaatee waa loo humaageeyey eebbana waxa uu sii raaciyey in ayna dhab ahaan dilin ee uu eebbo kor ahaansiiyey. suuratunisaa masiixiyiintuse waa ay diideen caddayntaas qur-aanka waxayna ku adkaysteen in nebi ciise isku tallaab lagu qodbay. geesta kale yuhuuddu waxay dafireen in uu ciise waa nebi ciise uu yahay masiix waxayna sugayaan masiix kale oo xorayn doona dhulka barakaysan ee yuhuudda sida ay rumaysan yihiin dibna ugu soo celin doona arlada barakaysan kadibna ay hantaan sidii oo iyagu iska leeyihiin. Israa'iisha quduuska ee abuureen labadii nebi ee nebi Daa'uud calayhi salaam iyo nebi Sulaymaan taasoo sababtay in Israa'iil xukunto adduunka oo dhan. masiixa ayaa dunida xukumi isagoo ka xukumaya qudusta barakaysan sida ay ku qoran tahay cahdigii bagas juuda kaasoo dib u soo celin doona wakhtigii dahabka ahaa ee yuhuudda. waxaa jira caddaymo adag oo caalamka si qarsoodi ah ugu dhex socda kuwaasoo ansixinaya sheegashada yuhuudda in ay rumoobayso kadib xorayntii dhulka barakaysan ee dhacday 1917. caalamkuna waxa uu markhaati ka noqday soo noqoshadii yuhuudda ee dhulka barakaysan si ay u hantiyaan 2000 oo sano kadib markii amar eebbe lagaga saaray. yagleelka dambe ee Israa'iil waxa ay bilaabantay 1948 si isdaba joog ah ayay Israa'iil u noqonaysaa marka la eego korriinkeeda quudaha adduunka taas oo ay la talowday kirishtanka oo markii dambe keenay casriga ilbaxnimada reer galbeedka taasoo iyana keentay horumar joogto ah xagga dhidibada dawladda dunida. waxa ayna u muuqataa in ay dunida hogaaminayso. nebi maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa caalamka ku baraarujiyey in dunida eebbe ugu sarreeyo kaas oo aqoon iyo qoondayn u leh dhammaan waxa caalamka ka dhaca taasoo jawaab u noqonaysa oo diidaysa dhabnimada sheegashada masiixa been ah ee yuhuuddu sida uu xusay buugga suuratul kahfi and the modern age entitled the Quran and Time lagu magacaabo. waxaa jira macluumaad ku saabsan nolosha nebigeena barakaysan taas oo muujinaysa in masiixa beentaha ah laga sii daayey adduunyada kadib hijradii nebiga ee Madiina dhacday iyo kadib markii yuhuuddii reer Madiina ay u diideen in uu nebi run ah yahay.
quraanka oo ah hadalkii uu soo dejiyay eebbe weyne. Nabiga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in mid ka mid ah hubka ugu cabsida badan ee uu masiix beenta ahi u adeegsanayo si uu u gaadho yoolkiisa maamulka dunida ee uu ku maamulayo Qudus, taasoo u muuqata qoorsiga iyo yareysashada aadamaha, waana indhala'aanta iimaaneed ee xeeladaha qiyaameed. sidoo kale rasuulku waxa uu cadeeyay awoodda ugu sarreysa iyo shaxda dahsoon ee masiixa beenta ah adduunka uu marayo in ay noqonayso inuu adduunku ku soo rogo kalitadisnimo, aadamaha guudkiisa iyo adeegsiga hubka ribada, iyo in uu ku adoonsado saboolnimo kuwa isaga diida, isagoo barwaaqaynaya kuwa isaga taageera, taas oo ka dhigayo in dadka hodanka ah loo abuuray inay hodantinimada ku jiraan, dadka saboolkana ah la adoonsado lana dhiig miirto iyada oo la tunjilacsanayo isaga oo sheegaya inuu wakiil ka yahay masiixa runta ah. waxaa muuqata in maanta adduunka loogu yeedho qaybo ka mid ah deeq-bixiyayaal, kuwaasoo dunida qaybo sabool ah beer la xawsada oo iskaga dhigay in iyaga la tudhay oo dan laga leeyahay. waase xeelad iyo dhagrid in qofka quudkaaga ku haya la raaco oo loo dhaganuglaado, iyadoo oo taasi jirto ayaa dunida loo soo dhoobdhoobaa oo loo qurxiyaa waxa loogu yeedho gargaar ama deeq ay xeelado ka dambeeyaan. miyaad aragtay deeq reer galbeed oo lagu dhergay? dadka deeqda soo noqoshadeeya ama soo qurxiya dadkoodu ma baahdaan miyaa? iyagu ma baahdaan miyaa? u fiirso xilliga deeqda ku soo hagaagto, dabcan waa xilliga dalageenu soo go'o.